السلام عليكم أصحابتي وقالي هاد بان idin salaamaya maanta waxaan idin hayaa sidee ayaad miisaan isaga dejin kartaa yaa baashaas miisaankaas iyo baruurtaas iyo cayilkaas wayna dhibeen haddii aan dumarnahay sidee baad jabiiba yaa caata isleelo isaga dhigi kartaa adigoon jiim aadin adigoon waxba aadin okay baruurta marka koowaad waxa aad u baahantahay haddaad rabtid miisaan inaad iska ridaysid inaad afkaaga ilaalisid calooshaada yaa waa inaad waxaan ku leeyahay gaajana aanad qabin cuntan cuntid laakiin aad ilaalisid cuntadaada waxaa kaloo muhiima in aad 30 daqiiqo ugu yaraan maalintii socotid ood socod samaysid socod aayar maahayaa socod jak 30 daqiiqo saacad 2 saacadood waxaad ka dhiganaysaa adeeg ku jirta laakiin ugu yaraan 30 daqiiqo waa inaad socotid cuntadaadana kan tarooshid yaa insha Allah 5 kiilo 10 kiilo yaa bil gudaheed way idinkaga dhacaysaa yaa videogan bilow ilaa dhamaystir daawo waxyaabaha maanta baan ka bilaabayaa yani waa inaad sidaas maalin walba u samaysaan cuntada uun kala bedela laakiin cuntadiina dietkiina waa inaad ilaalisaan aniga maanta waa isniina baan idin bilaabayaa waxaan ku bilaabay maanta waa isniin yaa waxaan toosaa 6:15 dhiman oo aroornimo waa subax maqrib maahayaa 6:15 dhiman baan toosaa ma garatay waa dadka shaqada aadaya ama ilmaha diraya 6:15 dhiman saacadaasaan toosaa markaad qofku tooso waad garanaysaan calooshiisu waa eber wuxuu rabaa wuxuu cuno wuxuu rabaa wuxuu afbilow ama qaxwe ama shaah ama wuxuu doono may afbilow ma jiro afbilow waxaad ka dhiganaysaan alaabtan aan hadda idin tusi doono ma garatay cadaygaaga qaado soo cadcadayo soo diyaari yaa jikada imow marka alaabtan bay noqonaysaa afbilowgaaga waad fahanteen waa kan afbilow quraacda ka hor yaa halka waxaan ku haystaa huruud sinjibiish shiidan koob ebara iyo qaadadiisii iyo hal xabo oo liin dhanaan ah waad fahanteen waa huruud sinjibiish shiidan sinjibiisha qoyana waad ka dhigan kartaan haddaad doontaan waad tumi kartaan yaa intaasaad u baahan tahay hadda waxaan sameynayaa liintii baan miiranayaa biyaha ka miiranayaa liinta qolofka xitaa lama tuuraya la socda liinta waan miiranayaa markaan miirto aan eber ka dhigo biyaha aan eber ka dhigto yaa xogaa waan yareereysanayaa waxaan ku ridanayaa koobkayga waa taas halkii gobolba waxaan ka dhigtay 2 koobkan ku celinayaa waayo liinta dhanaanta fitamiino badan baa ku jira qolofkeeda yaa fitamiin C iyo fitamiino kale oo fara badan huruuda sidoo kale waxyaabo badan bay daawo ka tahay sinjibiisha kadalik caloosha baruurta waxaa ka dhan waa muudsanaysaa hadda waxaan ku darsanayaa sinjibiishii qaadadaan isticmaalay waad ujeedaan waa qaada yar qaadada nuskeeda rabaa oo sinjibiil ah qaadada nuskeeda oo huruud ahna waan ku darayaa waad ujeedaan intaasaan ku darayaa alaabtan caloosha waxay ka dhigtaa dadkaada jeer caloosha qaba ma aragtay alaabtan isticmaalo caloosha way ka yareynaysaa biyo kulul baad u baahan tahay oo karkaraya yaa biyaha karkaraya u fiican biyaha karkaraya waan ku shubay oo ujeedaan waxaad sugaysaan 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo 5 daqiiqo okay saasay soo baxday 5 daqiiqo ka bacdi yaa liinta qolofkeedii baan iska gurayaa yani markaan kula 5 daqiiqo si aad adigu biyaha u cabi kartid oo kuleyl afka ka gubaya ahayn sida shaaha la rabaa inaad ka batid biyo qabow lama rabo ama lama rabo oo qandaca shaaha saad u cabtid waa inaad biyaha u cabtaa way biyaha diirmaadka baa la rabaa caloosha baruurta caloosha inay dhaqdo safayn waa safayn waad fahanteen koobkaaga waa koobkaas marka qac ka siisid 40 daqiiqo waxba ma cunaysid 40 daqiiqo shaqadiisa ha qabsato alaabtan shaqadeeda ha qabsato 40 daqiiqo bacdi quraacdi baad timi waqtigii quraacda jabaati ma cunaysid canjeero no rooti no alaabtaad cunaysa daawo bahalkan baan anigu isticmaalaa waa berry
mix berry waa fruit waxaan ku leeyahay qalalan iyo borage iyo wax isku jira yaa museli oo low fat ah. waxa kaloo isticmaali kartaa ukunta inta cad guduudka waad iska tuuraysaa iyo yaanyaad isku jarjaranaysaa. waxaa isticmaali kartaa boorash bilaa sonkor ah, yani kanaan isticmaalaa waa kaasaas u yaala waad ujeedaan. xoogaa waa qamadi xabad qamadi ku jirta iyo fruit qalalan. caanaha aniga low fatkaasaan isticmaalay, caanaha waa fiican freshka ah ee low fatka, laakiin dukaanka intaan aaday ani ka waxsaday kana yaalo oo shaaha ku cadaadeysto isaga laftirkiisa waa zero fat kaygaasaan iskaga darsanayaa. saddex qaadaad u baahan tahay, 3 qaado, 1 qaado adi kolba sidii aad rabtid. aniga hadda 3 qaadaan ku darsanayaa. kabacdi waxaan ku leeyahay biyahayga kulul baan soo qaadanayaa, waxaan ku darsanayaa biyo kulul baad u baahan tahay markaa inaad shubtid. biyo kulul baan soo qaadanayaa iyo kafayga kama maarmi kartid. kafay sonkor darabtid ku darsatid, wax yar oo sonkor waa ku darsan kartaa. shaaha qaxwaha xataa waa cabi kartaa, dhibaato ma laha. waxaraara yaa deyn kara kafay iyo qaxwo. waa kana biyahayga kulaan soo qaatay waan ku shubay 5 daqiiqaan dhigtay 2-3 daqiiqaan dhigtay intuu isdhex gelayo. intaana waxaan kula xoogaa kafaygaygii baan diyaarsanayaa ama qaxwo ama waxaad doontaa diyaarsanaysaa. 40 daqiiqa ka soo wareegtay intii markii aan cabay. waa kana kafaygaygii sonkor aan kuma darsado, kafayga keligiisa cabaa waad ujeedaa. kafay bes oo bilaa sonkor okay, miiskaygaan iskeenay waa kaa kafaygaygii. intaas qadadii baa soo hartay. qadadii waxaan isticmaalay malaygaas iyo broccoligaas, cucumber baa meesha igu jira iyo yaanyo. waxaa la rabaa wax oo faad lahayn, baasta maayo, bariis maayo, waxaas dhan waxaan kule hawada ka baxay. waa kaas. markaas casariyaan u baahanahay, waxaan gaajo ay u qabanaysaa. casariya green apple-kaasaan haystaa. green apple-kaas ama xabad banaana ah, xabad moos ah ama xabadaas tufaaxa ah kugu filan. intaasaad qac ka siinaysaa, isku qaboojinaysaa casarkii markay gaadho gaajo si ay kaaga baado. waad fahanteen baan malaynayaa. xabadaas green apple-ka baan anigu cunay. cashadii baa soo hartay. cashada waan controlay, waxaan ka dhigtay fruit. qaraha caloosha wuu kuu buuxinayaa, wuxuu kaa dhigay inaad daragsanta iyo intaa yaree beeriga. intaas markaad qac isku siisid maasha allah waad ku mahadsantihiin daawashadiina. aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahayga.